qaramada midooday oo ka walacsan kufsi baahsan oo laga soo sheegay Tigray Iran oo dil ugu hanjabtay Donald Trump qodobada kale daawadayaal ku daawan doontaan wararkeenana waxa ka qayb noqon doona yaa sugaya amniga doorashooyinka ka dhacaya magaalooyinka maamul goboleedyada waa warbixin aad ku dhex maqli doontaan barnaamij wareedkeena intaasina waxa ay ahaayeen daawadayaal qodobada aan idinku soo gudbin doona barnaamij wareedkeena fadlan muuqaalkan laagsaar oo la walaaga saxaabtaada si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adiga oo kale waad ku maasan tahay daawashada muuqaalkan aad daawanayso fadlan channelkeena subscribe inoo saar si ay saaxiibo fara badan ugu soo xirmaan channelkan isla markaasna ay ka faa'iidaan macluumaadkeenu halkan soo gelino xilli walba iyo saacad kasta markaan ku soo dhawaada qodobadii dulmarka aad daawateen oo intaasi ka sii faahfaahsan waxaan ku bilaabayaa ciidamo culus oo kufsi baahsan ah ayaa laga soo sheegay gobolka Tigray ee waddanka Itoobiya gaar ahaan xaruntiisa Maqale sida ay sheegtay ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan tacadiyada galmada ee goobaha dagaalka Baramel Beten ciidamada federaalka Itoobiya ayaa 28kii bishii November 2020 gacanta ku dhigay magaalada Maqale kadib dagaal dhowr toddobaad socday waxaa soo baxaya warar argagax leh oo sheegaya in dad qoys ah lagu amray in ay isu galmoodaan haddii kala dhibaato loo geysanayo ayay sheegtay Baramel Beten oo war qoraal ah ka soo saartay xaaladda gobolkaasi waxa ay intaa raacisay inay jiraan warar sheegaya in dumarka qaar lagu qasbay inay galmo la sameeyaan askarta militariga ah si ay u helaan waxyaabaha asaasiga u ah nolosha xarumaha caafimaadka ayaa tilmaamaya in ay kordheen dadka codsanaya daawooyinka dhalmada looga hortago iyo shakhsiyaadka iska baaraya cudurrada galmada lagu kala qaado arrimahaas oo astaan u ah tacadiyada galmada ee dhacaya xilliyada colaadda ay hadalkeeda raacisay Beten ergeyga qaramada midoobay ayaa sheegtay in sidoo kale ay kordheen wararka sheegaya in tacadiyo galmo ah lala beegsado dumarka iyo sidoo kale hablaha ku nool tiro xeryaha qaxootiga ah waxa ay ugu baaqday dhinacyada dagaalamaya inay dhiirigeliyaan hanaan si buuxda looga hortagayo tacadiyada galmada ku salaysan ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa 4 November sanadii tagtay 2020 weerar cirka iyo dhulka ah ku qaaday gobolka Tigray si uu meesha uga saaro xisbiga TPLF ee hoggaanka u hayay dalkaasi muddo 27 sano ah duulaanka ka hor xogaga TPLF ayaa weeraray oo qabsaday saldhigga militariga Itoobiya uu ku leeyahay gobolka Tigray Dr. Abiy ayaa sheegay in lagu guuleystay duulaanka Tigray kadib markii uu bil socday balse hoggaanka TPLF oo hadda baxsada ayaa wacad ku maray in ay qaadayaan dagaalo jabhadeena danka kalena daawadayaal hogaamiyaha sare ee dalka Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa bartiisa Twitterka soo dhigay qoraal iyo sawir u muuqda mid ku baaqaya in la weeraro madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump si loogu argudo dilkii sanadkii hore Mareykanka u geystay taliyihii ugu sareeyay militariga Iran General Qasim Soleimani sawir la soo dhigay boggiisa rasmiga ayaa muujinaya madaxweynihii hore ee Mareykanka oo golof ciyaaraya xilli la arkayo hooska waxa uu eega diyaaradda dagaal ama diyaarad weyn oo ah nooca aan lahayn duuliyaha ee droniska loo yaqaan sawirkaasi ayaa ciwaan looga dhigay argudasho waa mid la hubo shirkadda Twitterka ayaa xirtay ciwaan yar oo dad badani aysan ku taxnayn oo markii ugu horeysay lagu daawacay sawirkaasi haweeney afayeen oo u hadashay Twitter ayaa u sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters in ciwaankaasi Khamenei said uu yahay mid been abuur ah isla markaana uu ku xadgudbay nidaamka iyo siyaasadda shirkadda Twitterka si kastaba ha ahaatee qoraalka ku lifaaqan sawirkaasi oo ku qoran luqadda Farsiga ayaa waxaa sidoo kale dib loogu faafiyay ciwaanka rasmiga ah ee Ayatollah Ali Khamenei oo ku leeyahay Twitterka oo ay ku taxan yihiin in ka badan 300 oo kun oo qof balse markii dambe ayaa la tirtiray oo laga saaray boggaasi Twitterka ee Khamenei qoraalkaasi oo ku qornaa luqadda Farsiga ayaa ereyga argudasho waxaa lagu qoray farcasaan ah waxaana qoraalka intiisa kale uu leeyahay dilka Soleimani iyo cidii amarkaasi bixisay waa in loo ciqaaba qoraalkaasi iyo sawirka ku lifaaqan ee la soo dhigay bogga rasmiga ee Ayatollah Ali Khamenei
ayaa soo xiganaya hadal uu jeediyey 16 bishii December ka oo mar kale wacad ku marayay in Soleimani loo argudayo waqti kasta. shirkadda Twitter-ka ayaa lagu booriyay in ay wax ka qabato hanjabaadaasi kadib markii dhowr qof oo isticmaalaya Twitter-ka ay shirkadda ku dhaliileen in ay Trump ka xirtay bartiisa Twitter-ka balse aysan xirin kan hogaamiyaha Iran. shirkadda Twitter-ka ayaa horaantii bishan xirtay ciwaanka Donald Trump madaxweynihii hore ee dalkaasi Mareykanka ee dadka badani ku taxnaayeen kadib markii uu daawacay qoraallo loo arkayay inay dhiirigelinayaan rabshadihii hareeyay dhismaha aqalka Koongareeska Mareykanka. General Soleimani ayaa dowladda Iran u fududeeyay xoojinta kooxaha xagjirka ee Iran taageersan wuxuuna balaariyay saameynta military ee Iran ku leeyahay wadamada Ciraaq iyo Suuriya. Iran waxay sidoo kale abaabushay kooxo dowladda Suuriya gacan ka siinayay la dagaalanka kooxaha falaagada ah ee muddada dheer qaybta ka ahaa colaadda sokeeye ee dalkaasi. Trump ayaa dilka Soleimani kadib waxa uu sheegay in General Soleimani uu si toos ah iyo si dadbanba uu mas'uul uga ahaa dhimashada malaayiin qof. Iran ayaa dilkiisa uga falcelisay gantaalo fara badan oo ay ku duqaysay xarun ay leeyihiin ciidamada cirka ee Ciraaq oo ay degan yihiin ciidamada Mareykanka waxayna ka digtay weeraro kale iyadoo Ayatollah Khamenei uu xilligaasi sheegay in argudasho baani ay sugayso dambiilayaasha. shirkadda Twitter-ka ayaa horaantii bishan mamnuucday qoraal uu Ayatollah Khamenei soo dhigay boggiisa ka uu ku sheegay in talaalka cudurka COVID-19 ay saameeyeen wadamada UK iyo Mareykanka yihiin kuwa aan la aamini karin. guud ahaan daawadayaal halkaas ayaan jecelahay inaan ku soo gabagabeeyo qodobadii aad ku